Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ku soo dhawow channelka Waxgarad. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh. Sheekooyinka qaar ama barnaamijyada qaar markii aad akhriso ama aad dhegaysato waa kuwo cajiib badan yaabna leh midba midka kalena ka sii xiiso badan. Waxaa barnaamijkeena maanta ama mowduuceena maanta uga hadli doonaa magaaladii ragga laga mamnuucay. Dumarka degan magaaladan waxay u barooranayaan ama ay u oonayaan waa rag. Ma aha inay doonayaan inay xal u helaan arrin adag oo la xalin waayay, laakiin waa magaaladii oo laga mamnuucay lagana saaray raggii oo dhan, waxaana iskugu soo hareen dumar oo keliya. Magaalada lagu magacaabo Nueva Concordia ee dalka Brazil waxaa ku nool qiyaas ahaan 600 oo dumar ah oo da'doodu u dhaxayso 20 sano jir ilaa 35 sano jir. Dhammaantoodna waxay doonayaan inay helaan raggii guursan lahaa. Waa dumar isku kalsoon, waxaana waqtigan ay diidan yihiin sharciga magaaladan oo ah in raggu marka ay gaaraan 18 sano magaalada laga saaro. Go out macna waa iska bixi haddaad 18 sano gaartid. Inkastoo maalmihii dambe ay imaanayeen hay-ado oo naagta ku xirayso nin kale oo magaalo kale jooga si isku guursadaan iyo hay-ado u doodaya xuquuqdoodaba. Iskoolada magaaladan waxaa macallimiin ka ah dumar bis, naag leh wax baranayso, naag leh wax barayso. Saas waa. Dumarka magaaladan ayaga shaqaystaan, beerahooda ayaga soo falanayaan, wax kasto ayaga qabsanayaan, nin aan wax shaqo iyo waxaas uga baahnabo, guur leh uga baahan yihiin. Haddii aad tagtid magaaladan kuma arkaysid wax nin ah. Waxaa la muddo markii la joogo hal nin camal imaanayo TV wax saas u shaqeeyo oo war iyo ama hay-ad iyo war iyo wax saas inuu ka qaadan rabo. Waxaa la marka nimanka qayli ka ah magaaladan hadduu hal nin imaado maanta dhan asaa meel ka bax weyn oo la isku sawiraa maanta dhan. Dumar badan ayaa magaalada iskaga guuray kuwaas oo lagu guursaday magaalooyin kale. Marka ay ku soo noqdaan magaaladan raggu ma soo raacaan, laakiin iyaga ayaa u taga maalmaha fasaxa. Macna raggii soo guursaday magaalada uma soo raaci karaan, ayaga maalmaha fasaxa iyo ciidaha u tagay. Arrinta adag ee ay ku fakaraan dumarka degan magaaladan waa guurka oo kaliya. Waxa kale dhan dhibaato ma kalaanba guur kale dhib ku ah. Magaalada waxa u maleynaa guurkii xasaasiyad ka qabaan. Magaalada Nueva Concordia waxaa aasaastay gabar lagu magacaabo Maria de Lima qarnigii 19aad kadib markii magaaladii ay degneed xoog laga soo saaray iyadoo lagu eedeeyay inay samaysay Google Earth ninkeedana ay qiyaantay. Gabadha lagu magacaabo Maria de Lima waa gabadhii intaasoo gabdho oo hinta ka keentay, waxay samaysay ururka haweenka sumcadda laga dilay, waxayna degay magaaladan oo ay ka mamnuuceen in ragga oo ay ku tilmaamtay kuwo kibir badan ay soo degaan. Dumarka magaaladan ee carruurta haysta wiilkooda lama joogi karo wixii ka dambeeyay 18 sano. Dumarkaasi ayaa ah kuwa raggooda ugu taga magaalooyin kale oo ay degan yihiin. Gabar kasta oo doonaysa inay magaaladan ku noolaato waa inay si taxaddar leh uga soo fakartaa ka hor inta aanay soo degin. Gabar oo Delima camal la degi karta magaaladan. Intaas ayaa maanta idin soo bandhigay. Like, share, subscribe na liloobin aad iyo aad u mahadsantihiin.